madaxweynaha waxaan weydiinayaa oo kaliya oo ku adkeynaya ku dhiirigelinayaa madaxweynuhu wuxuu u dhaartay bulshada ballanqaadyo badan buu sameeyey ballanqaadyadii dhalinyarada wax badan baan ka xasuustaa dhalinyarada gobolka soo dhaweysay baan ka mid ahaa dhalinyarada sida gaarka uga agdhow baan ka mid ahay hadda laftigeeda waxaan talo iyo tusaalaba u kordhinayaa waxa weeye madaxweyne ballanqaadkii aad bulshada u samaysana ka dhabay way ka muuqataa mas'uuliyadda iyo la kacabsigu albaabkaaguna هو فرادو قف كستا أو ريل بتلانا حلقة دون تقابل حلقة دون توجوات لكن وين كبد الشارع دقن كي مدحوينا الشهرة وح كبد الشارع مدحوينا جروب عنكو هايستو إن أنا قطوا كاجد جيا مدحوينا دن تجود كورسية دن تجار كأنا إن أنا قطوا كاجد جيا سيد لو جوجا قاني واقف فدرال كأجوكتي وحرمنا كسر لون لابتو أو الشغل نقول نقطة قف دحى أو نقطة قف دقي يستربيتان كولا غيرنا عن وحيس الربين سنجل جيل إذا لقد فيرنا أيوه برنامج كوي ماذا صاحب تنمو كان عن صوت شغال جرني ناس نكاح السؤال وقرابة سبضان تقولتي الكاتب هذا لكن صدق يدك حلوق بتو وسيستم كغرفة بدن وهر قلوا مدحوين جروب إسكا إلالي جروب بودك الروي هذا أوجين بيك دك وش شيئا waxa ogtayna waa ka qarnaya madaxweynaha waxa uu soo jeedin lahaa golaha wasiirada waxa kale maanta ugu haboon maanta su'aasheedu ay tahay waxa weey waa xagga wasiirada weey in la soo dhiso wasiiro tayo leh looguna talagalay shaqada ay qabanayaan mid walbana uu ku haboon yahay shaqada loo soo qabanayo maxaan kale madaxweynaha ka codsan lahaa in laga dhigo wasiirada dad dal joog ah oo ah dad aan meel kale ka iman dibadda ka iman anu waxaan weydiin lahaa su'aashaada waxa uu gartay inaad tiri hadii aad maanta madaxweyne ka ahaan lahayd Puntland madaxweynaha hadii aad chance hesho ha waxa waa maasatahay mahad waxaan weydiin lahaa ama aan u soo jeedin lahaa madaxweynaha waxaan dhihi lahaa madaxweyne diyaar ma u tahay in aad mar kasta oo golo wasiiro ay ama la ansixinayo ama golo wasiiro lala xisaabtamayo in adiga iyo golihiina wasiiradu hor timaadaan golaha shacabka ee baarlamaanka Puntland oo inaan qol hoosta ka xiran sida xukuumadii hore u soo jiray oo la xisaabtan dhab ah la sameeysan si inuu ogaadaan bulshadii ku soo doortay shacabka iyo xildhibaanadii oo loogu kalsooni qabo xukuumadda cusub taas waa qodob waxaan kale oo isagana su'aasha kale aan weydiin lahaa ay tahay madaxweyne ma laga yaabaa in aad u madax banaanaatid golahaada wasiirada aad soo dooranaysid oo aysan cidna kugu faragelin hadday beel noqoto hadday qabiil noqoto hadday xisbi noqoto sida hadda la isku xabanayo inta inay ka madax banaanaadaan ma laga yaabaa waxa kale oo su'aasha saddexaad oo dambaysa weydiinaya waxay tahay madaxweyne ma laga yaabaa ciidanka mushaar la'aanta ka cabanaya 24 saac oo qoraxda taagan oo aad ogtahay dhibta iyo rafaadka haysta ma laga yaabaa ciidankaas in mushaharkoodii iyo xuquuqdoodii iyo xaqii ay dalka ku lahaayeen si cadaalad in loo siiyo si amniga gacanta loogu dhigo wadankuna isku filaasho u gaaro ama